qofku soo maalin سواء شيء واجب الله عنك waxaad ku xasuustaa xuska 18aad sanad gudaha 18aad ee Liibiya waxay ku xasuusinaysaa maanta xasuusinaysaa taariikhda markaan shucuurteeda aad iyo aad u soo dhifaatay ummadan oo wixii ay ka maqnaayeen oo inay soo ceshadeen laakiin aan jecelnahay dadku muwaafaqo keenaan muwaafaqo aan wax ku weyni marka waan u soo duceeyay dadkii fursadan adigoo ka faa'iideysanaya yaa halkan ka salaaminaya وراها قاعدية وقل حج شغال السلام يا اللهم صل على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم maalintan waxay noogu fadhidaa maalin aad iyo aad u qiimo badan dalkeena aynu soo marnay xorriyadiisa iyo inaynu dib u soo ceshano aynu soo qaadnay dhiig fara badan arrintaasi waxayna tusaysaa inaynu qarannimadeena ku faano inaynu qarannimadeena weynayno inaynu qarannimadeena muujino inaynu tusno adduunka inaynu nahay waddan madax bannaan iyo dal jira oo xor ah oo xornimadiisii kala soo noqday dalkii la isku jiray Soomaaliya arrintaasi waxay noogu fadhidaa aad iyo aad u weyn oo aan la cabiri karin maantana dadka shucuubta Somaliland dareenkoodu waa isku mid waa hal qof ayay u dhigmaan Somaliland oo dhammi dareenkeena inaynu weynayno inaynu maaragtay aad iyo aad u dhiirigelino si ay u muujino caalamkana u tusno inaynu nahay dawlad ka madax bannaan Soomaaliya oo cagaheeda taagtay 1990 mar labaad xorriyaddeena aynu leedahay 1960 waxay maanta inoogu fadhidaa macno badan bay maanta inoogu fadhidaa nafa badan bay inoogu fadhidaa qarannimada waa inaynu muujinaa waa inaynu intaa uga sii dhowaanaa oo aynu markaas aynu u helno himaladii iyo halgankii uu qarankan higsanayay muddada dheer saynu nago halkan adigoo fursada ka faa'iideysanaya ayaad ka salaami lahayd fursadda qaaliga ah ama dahabiga ah anigoo ka faa'iideysanaya waxaan salaamayaa dhammaan waxaan salaam u dirayaa ummadda Somaliland oo dhan dhammaan waxaan salaam kale oo qaaliya u dirayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee heeganka had iyo habeen bay ku jiraan waxaan kaloo salaam qaaliya u dirayaa dhammaan ehelka qaraabada asxaabta ummadda Somaliland oo dhan iyadoo midaysan maanta dareenkayga lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay ilaahay ma kii hore ee nalagu xasuuqaya ilaahay i tusay ee maantana tan i tusay alxamdulilah wallaahi waan jecloonayaa indhahayga in baan soo taagaysaa 18 sano kadib maxaad dareemaysaa isbeddel intee leeg waxaan dareemayaa dareen aad iyo aad iyo aad u ballaaran nabad baan dareemayaa xorri baan dareemayaa qurux baan dareemayaa xorri baan dareemayaa maasha allah lama soo koobi karo maanta dareenkayga aad iyo aad baan u faraxsanahay fursaddan adoo ka faa'iideysanaya ayaad halkan ka salaami lahayd waxaan ka salaami lahaa dhammaan ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay nabad ku waara nabad ku ciida maasha allah waxaan ku ibsanay madaxweynaha Mustafe Ahmed waxaan leeyahay magacaha jiro insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inagu taadin maalinteena inagu caalamku ictiraafay oo caalamka ka taagan yahay ayaan ilaahay ka rajaynayaa